walaasha idaawanaysa walaalka idaawanayow labadiinaba waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo hadiga nabigeena calayhi salaatu wassalaam qayb ka mid ah. nabigeena waxaa la leeyahay calayhi salaatu wassalaam fadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin. dadka waani nebi maxamedow, waanada iyo dikriga waxaa qaata kuwa mu'miniinta oy anfacaysaa. sidaasuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala. marka waxaan rabnaa inaan dadka waanadaa usoo gudbinno. waxaan jeclaystay marka inaan idinkala qayb qaato xadiid nebigeena calayhi salaatu wassalaam ka sugnaaday, dikri ku soo arooray ama duco ku soo aroortay. halkaa duco ayaan rabaa caawa inaan wada xifdino oon ka wada faa'iidaysano. halkaa duca maxay tahay talow? in badan waxaa laga yaabaa dhegihiinnu inay maqleen halkaa duco, dhegihiinnu inay maqleen, indhihiinnu inay qabteen, laakiin bini aadan baynu nahay. kutub badan markaad akhrisato, cilmi badan markaad barato, waxyaabo badan markaad ka faa'iidaysato, waxaa laga yaabaa wax badan inaadan maskaxda ku kaydinin baa dhici karta. xaqiiqatan weeye arrintaa qof waliba inuu tijaabiyo uu yaqaano ayay u badan tahay. waxaan idiin sheegayaa marka inaan ducadaas qofkii xifdisnaana dikri iyo waaniyo xasuusin bay u tahay, qofkii aan xifdisnaynna hadduu ka faa'iidaysanayaan. dadka qaar ba markay arkaan nin culummo ah ama nin dhallinyaro oo sheekh ah oo dadka wax u sheegaya oo baraya ducadii nebiga calayhi salaatu wassalaam, markay arkaanba waxay dhahayaan ninkan muxuu wakhtiga isaga dhuminayaa. dadku ducadanba way yaqaaneen. qaarkood isagoonba adduunka ku soo biirin uuna dhalanin ayay yaqaaneen. muxuu u faa'iidaynayaa dadkan ayay dhahayaan. dadkaasi waxayna dareensanayn oyna ogayn runtii baahida ay dadku diintooda u qabaan inay maalin walba loo sheego, in maalin walba loogu celceliyo xadiidka ama dikriga ama ducada ugu yaryar dadka in loogu celiyo. markay hadda muxaadaraadkii bateen, cajalladii la dhegaysanaya meel walba ay ka baxayaan, dadka xifdigoodii iyo diinta aqoontii u lahaayeen wuu ka soo badanayaa. berigii horey culummadu masaajidada uun joogeen oo kitaabta uun masaajidada lagu aqrin jiray, li'anna dadka intooda badan masaajidada xilliga salaadun bay imaadaan, maba imaadaan xilliyada faraha badan ama xilliyada qaarkood inta badan kama faa'iidaystaan. dadka inta badan kitaabada iyo majaalisul cilmiga iyo majaalisul khayrka ka qayb galaa waa dad kooban oo dalabatul cilmi uun ah. marka waxaan u baahannahay, loona baahan doonaa, shalayna loo baahnaa, hal wadaad iyo 2 iyo 3 iyo kumaan kumna ayna waxba ka qaban karin. waxa weeyaan in dadka diinta la baro. balliquu cannii walow kaana aaya, nabigeenu saasuu leeyahy calayhi salaatu wassalaam. iga gaarsiiya ummadda oo dadka iga gaarsiiya, walow waxa aad iga gaarsiinaysaan hal aayad oo qur'aanka kariimka ka mid ah ood qofkii u sheegto, barato, ood lafdigeedii xifdisiiso, ama macnaheedii hadduu lafdigii yaqaanay aad barto, ama hadduu lafdigii iyo macnihiiba isla yaqaanay inaad ku waaniso ood ku wacyigeliso ood xasuusiso waxay aayaddaasi amrayso ama xadiidka nebigu amrayo aad xasuus ugu sheegto ayaa lagaa rabaa. haddaba walaal, innagoo saa ka duulayna walaalayaal, gabdhaheenna walaalada ah iyo wiilashaba innagoo arrintaa ka duulaynaa oo nebiga calayhi salaatu wassalaam hadalkiisii iyo amarkiisii qaadanayna, balliquu cannii walow kaana aaya, hal aayadna ha noqotee wax iga gaarsiiya uu leeyahay. waxaan jeclaystay inaan sameeyo barnaamij noo noqon doona musalsal oo in badan ka bixi doona janaaladeenna, sida janaalka la yidhaahdo Sakina Sky TV iyo janaalka la yidhaahdo Bulsha Kaabe iyo janaalka la yidhaahdo WW Somali TV. saddexdaaba waxaan ugu talagalnay dacwada, ayaan ugu talagalnay khayrka, ayaan ugu talagalnay barnaamij fara badan baan ka soo dayn doonaa insha allah biidni illah tabaaraka wa tacaala. waxyaabahan ugu talagalnay waxaa ka mid ah qaarkood inaan adkaarta iyo ducooyinka dadka ku barno. waxaa kaloon ugu talagalnay
inaan ku barno riyooyinka fasiritaankooda. waa shareecadeennu qayb weyn bay ku leedahay. culummo badan baa kutub ka qortay. culummadii salafkii ayaa waxay ka qoreen kitaab waaweyn oo tacbiiru ru'ya la yidhaahdo, riyooyinka sida loo fasiro. leanna maantoo dhan riyaad arkaysaa. gabdhihii way arkayaan, wiilashii way arkayaan, culummadii way arkaysaa, caamadii way arkayaan. dadka riyooyinkay arkayaan in loo fasiro way ku weydiinayaan, oo dadkii ahlucilmigaa bay weydiinayaan. culummaduna aqoon uma wada leh. waxaa laga yaabaa sheekh weyn oo mufti ah inuuna aqoon u lahayn inuu fasiro riyada. sababta kutubtii ka hadlaysay inuuna isku mashquulinin, una mudaalacasho ku samaynin, aqrinin ayaa laga yaabaa. oo majaalka fatwada iyo xadiidka iyo tafsiirka iyo fiqiga iyo dhinaca uu leexday, tawxiidka iyo mawaad kaloo lamid aba. laakiin jaanibkaasi inta badan dad yar baa ka shaqeeya. waana majaal loo baahan yahay oo jiri jiray ilaa xilligii salafka. si aynaan marka mawduuca aynan uga bixin, waxaad kala soconaysaan janaaladeenaas oo dhan, waxaad kala soconaysaan barnaamijtaas tacbiiru ru'ya ama sida riyada loo fasiro, iyo adkaarta inaan kusoo gudbino maalin walba hal duco oo nebigeenna ka sugnaatay aan isku barayno. arrimaha kale waxay noqonayaan arrimo bulshada wax u noqon doona oo usoo kordhin doona bulshada waxyaabo wanaag ahoo fara badan usoo kordhin doona ayay noqon doonaan. marka waad nala socon doontaan insha allah. haddaba yaynaan ka bixin mawduucii ee ducadii nebigeenna ka sugnaatay aan caawa jeclaystay inaan ku bilaabo. mawduuceenna waxa weeyaan, nebigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, aroortii iyo galabtii qofka yidhaahda bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi alardi walaa fi alsamaa'i wa huwa asamiicu alcaliim. ducadaa qofka aqriya, aan ku celiyo, bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi alardi walaa fi alsamaa wa huwa asamiicu alcaliim. ducadaa 3 jeer qofkii aqrista aroortii, galabtiina 3 jeer aqrista, nebigu wuxuu yidhi wax ku dhacaya laa yusiibuhu shay-un, wax shay ahoo asiibayaa ma jiro. ilaahay baa ka magangelinaya, ilaahay baa ka badbaadinaya. sixir hadday tahay ilaahay baa ka badbaadinaya, il hadday tahay ilaahay baa ka badbaadinaya, musiibo bini aadan hadday tahay ilaahay baa ka badbaadinaya, mid xayawaan hadday tahay ilaahay baa ka badbaadinaya, mid dab hadday tahay ilaahay baa ka badbaadin. meel kasto ay ka timaado iyo jiha kasto ay ka timaado, shisheeye iyo sokeeyo meel kasto ay ka timaadaba, allah subxaanahu wa tacaala ayaa ka badbaadinaya qofka. allahu akbar, allahu akbar. waa kelimo yar oo naftaada ilaahay ku badbaadin, oo maalkaaga ilaahay ku badbaadin, oo ubadkaaga ilaahay ku badbaadin, oo gurigaaga ilaahay ku badbaadin, haddana ajar ilaahay kaaga qorayo subxaanahu wa tacaala. halkii ajar ee lagaaga qora ee xasanaad ee lagaaga qorana waa laguu sii laalaabayaa. 10 jeer baa laguu gaadhsiin, waa lagugu sii darayaa ilaa 70 jeer, 100 jeer ay sii gaadho ayaa laguu sii laalaabayaa ajarkeedii oo laguu sii qorayaa. waxaaba laga yaabaa inay noqoto midii kaa badbaadin lahayd cadaabka inaad gasho. waa miduu ilaahay qur'aankiisa markuu tilmaamay suuratul qaarica, fa amaa man haqulat mawaasiinuhu fa huwa fii ciishatin raadiyah. qofka ay miisaankiisa xasanaadka iyo khayraadku ay u cuslaadaan oo wax weyn la imaaday, qiyaamada nolol raalli ah buu gelayaa, jannuu gelayaa, naxariis buu gelayaa. waxaa laga yaabaa middaa inaad ku kasbato ducadan aad aqrinayso, ood galabtiina aqrisato 3 jeer, aroortiina 3 jeer aad aqrisato, inuu ilaahay miisaanka xasanaadka kuugu buuxiyo oo miisaankaagu ku cuslaado oo dunuubtaadii uu ka cuslaado ayaa dhici karta. diintu yaryaraysi ma leh. diinteennu waa naseexo, diinteennu waa xikam, diinteennu qof waxaa uun wax ka waayi kara oo naar geli kara oo cadaab geli kara qof diinta ilaahay faraha ka qaaday. laakiin haddaad sunnada nebi maxamed 10 ka mid ah, 3 ka mid ah, 4 ka mid ah, 1 ka mid ah, ka sii badan
haddii aad sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ku dadaasho shaki waxaan ku jirin ood ka samayso wax uun ka mid ah inuu aad gelayso jannana aad mudanayso ilaahayna adduunkana kugu badbaadinayo aakharana kugu badbaadinayo. haddaba walaalayaal ducada aynu ka faa'iidaysanno. ducadaasi waa ducadee: bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa'i wa huwa asamiicu alcaliim. bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa'i wa huwa asamiicu alcaliim. 3 jeer baad galabtii akhrisan, 3 jeerna aroortii baad akhrisan. wax walibana wuu kuu badbaadi, ajarna waad ku helaysaa, khayr iyo barakana waad ku helaysaa. ducadaa aan ku dadaalno. koroonaha ayuu ilaahay ku baalmarinayaa. xoolahaaga in la dhaco ilaahay ku baalmarinayaa. xoolahaagu ilaahay kuugu badbaadin, cirdigaagu ilaahay kuugu badbaadin, naftaadu ilaahay kuugu badbaadin. wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye waxaan akhristay ducadaa muddaan laasimay. waxaa i soo maray xilliyo dhibaatooyin fara badan ay jireen, culaysyo fara badan baa xilliyo badan i soo qabsaday. runtii xaqiiqatan cid aan idinka ahayna lama aanan wadaagin, haddaan la wadaagayna way yar yihiin. waxaan xusuustaa waqtiyo culaysyo dhib badan ay igu imaadeen, markaasa waxaan akhristay 3 jeer ducadaas: bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa'i wa huwa asamiicu alcaliim. waxaa kaloon akhristay 2 duco oo duco ka mid ah ducaduu ilaahay ku badbaadiyey markii doonta la saaray, ilaahay ku badbaadiyey ee la damcay badda in lagu tuuro. markii buurta la saaray ee la damcay buurta in laga soo riday, ilaahay ku badbaadiyey ghulaamkii yaraa ee suuratulburuuj looga hadlay, ee qisatu asxaabi alukhduud ra'iiska u ahaa. dadkii mu'miniinta ahaa ee soo islaamay inay soo islaamaan oy tawxiidka qaataan, ninkii wiilkii yaraa ee sababta ilaahay uga dhigay wuxuu akhristay duco. ducaduu akhristay waa markii buurta uu yidhi boqorku ha la saar haran laga soo rida hadduu diintan ka laaban waayo, iyo markii doonta la saaray ee doontii markii la saaray uu yidhi hadduu ka laaban waayo diinta ka rida uu yidhi. ducadaa unbuu akhristay. ducadaa markuu akhristayna ilaahay waa ka badbaadiyey. runtii 3 duco ayaan akhristay. ilaahayna subxaanahu wa tacaala sidii aan filayey, si aad uga fudud, si dhib yar, si ilaahay subxaanahu wa tacaala buu mar walba ilaahay iiga dhigaya subxaanahu wa tacaala. anigoon awood lahayn, anigoo oon dhaqaalo u haynin, anigoo oon u haynin waxyaabo badan oo bini aadamku ay kaashadaan oo dhan iga maqan yihiin, laakiin waxaan ku tirsanaa oon isku halaynayay ilaahay diintiisa subxaanahu wa tacaala. sunnada nebiga, adkaarta iyo ducada ayaan isku halaynayay. waxaan ahaa aw aawi ilaa ruknin shadiid, rukni weyn oo adag oo culus ayaan u tiirsanayay oon isku halaynayay. waana sunnada nebiga, kitaabka alle iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wassalaam. walaalayaal, marka ducooyinka aan ka faa'iidaysanno, duruustaasi waxay inoo noqon doonaan musalsal. muddo yaroo kooban bay soconayaan, 20 daqiiqo socon mahayaan, 15 daqiiqo ka badan dersi soconaya ma soo dhigayno insha allah. waa 15 daqiiqiya wixii ka yar ayaan ka dhigi doonaa insha allah hadduu ilaa yidhahdo caawo maxay naga gelaya hadal fara badan. laakiin waxaan isku dayayaa ducada hadda kadib, ducada iyo inaan sheego waxyaabihii mucjizaadka ahaa ee laga soo maray, ee dadkii culummada ahaa iyo dadkii aqrin jiray waxyaabihii faa'iidooyinka ahaa ee ka heleen, iyo inaan ka hadlo ducada waxyaabaha laga heliyay inta jeer la akhrisanayo. intaasaan kusoo koobi doonaa. 10 daqiiqo inuuna inooga badanin iyo 8 daqiiqo meelahaas inta u dhaxaysa ayaan isku dayaynaa insha allah. muqalladaasi hadday idin cajab geliyaan walaalayaal, si ay walaalayaal dad kale uga faa'iidaystaan, annaga waxaad nagu taageertaan sabscribe-ka, like-ta oo saartaan. waxay nagu dhiirigelinaysaa inay dad badani daawadaan. like-tu hadday u fara badato barnaamijka, dad badan ayaa sii gaaraysaa, uu sii daawanayaa oo barnaamijkana kasii faa'iidaysan kara. nabigeenuna waa kuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam: addaal cala alkhayri ka faacilihi. qofka khayrka dadka tusiyaay waxaa tusintuuna noqon kartaa inaad dadka u sheergarayso, inaad like-ta badiso, inaad sabscribe-ka ku saarto, ood welina gambaleelkii iyo sii furato, si aad duruusta mar walba kuugu soo dhacaan aad uga faa'iidaysato. sideedaba waxaanaad aragtaan social mediaha la yidhahdo, ama YouTube ha noqdo, ama Facebook ha noqdo, ama TikTok ha noqdo, ama wixii lamid ha noqdaane, dhammaantood waa mindi 2 af leh. dadna khayrka un bay uga faa'iidaystaan,
oo ummadda faraha badan uga faa'iideynayaan dadna sharka iyo uga faa'iidaystaanoo xagga xun unbay uga faa'iidaystaan marka innagu waxaan uga faa'iidaysanaynaa insha allah khayrka iyo wanaagga marka mar walba waxaan isku garab taaganahay khayrka ducadan ayaan la iloobin maadaama hadal fara badan soo dhex gelayay bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa wa huwa asamiicu alcaliim bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa wa huwa asamiicu alcaliim bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa wa huwa asamiicu alcaliim wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu